xukunka aad ku xukunto ayaa lagu xukumi doonaa qiyaastii aad qiyaastana waa lagu qiyaasi doonaa wax badan ayaan arrinkan ka hadalnay wax badan ayaan kaga dignay bulshada Soomaaliyeed oo nari war gabdhaha inta la dayriyo oo lagu ciyaaro markay daaystaan yaan laga daba qaylin haddaba maanta ama caawa waxaa tarfaha la haystaa gabar Soomaaliyeed oo markii la dayriyay la xumeeyay la soo furay guur iyo garab weyday qofku waa nafle waa bilowaadan ummada kale wax ku darsatay ummada kale guursatay waan ka xunaa runtii dadka Soomaaliyeed inay kala tagaan ayaga oo mid kasta meel kale guur u raadsado markastana waxaan dhiirigelinaa dadku inay wax wada qabsadaan oo aan gabdhaha la dayrina wiilashu ay noqdaan wiilal fiican yaa waan ka doorsaday dusha hayga xiganine inaysan dhicin aan isla fiirino hal mar gabadhaan miskiinta ah ee guursatay iyo sida loo xagxaganayaan wada dhageysan wixii inaga dhaxayaan soo haysanayno in wadayno waa in qodobka la fahmo wixii inaga dhaxaya weeye waxaynu isku haysano hadda gabadhan look ninka free bay ku raacday maybe iyada lacag bixinaysa hadduu ninkani Soomaali ahaan lahaa ma free bay ku raacday maya lacag buu bixin lahaa waalidkeed buu siin lahaa qaraabadeedu wax siin lahaa aroos buu dhigi lahaa su'aasha loo baahan yahay in jawaab loo helo waa taas gabdhaha ayaan isku darin iyo qaar baa wanaagsan iyo qaar baa xun iyo war cidii wanaagsan iyada wanaagsan cidii xun iyada xun anigu waxaan taaganahay aragtida ah warni Soomaali why baad adu everything adu invest garanaysaa why baad adu wax walba ninka dhiibaya adu tahay ninka kana u firiyo ugu horiya war sirta kaliya faham sirta keentay inuu ninkan firiyo wax ku qaato waa inaad fahanto Sheekh Maxamedow dumar loyal ma jiraan ma leedahay hadda loyal absolutely in the entire history of humanity حتى دمر لويل ولا كل وجهه ناكتو دنت هذه دعوة تاعي وكان قرطاس ميل بكون نوت جلست ايه قد تصالير ما قصني يعني تاريخ عام حتى وحكو تصيا حتى تاريخ عام انا وحكو تصيا ما بقى هذا نورشان ان ايه كنت لي واحد كبا انا حتى اغلين ايديني لا بد عقلي ما قصني اني ناكتو دنت هذه دعوة تاعي ولم بعضهم شخصيا مركز موضوع أنا كحليل يكون ضمن كرة مصلحة القرآن وفي صار أن الله تحت على نساء يضل لك حسنين حرية ويضل أونلاين وحرية وحتى أيضا نقول لك نحن مقال ونسب الله يطلع تعذب يضل لكن يضل تهم مصلحة كريسة ورفاق المرقون كتاب برتكتب المرقون كتاب قول لك المالية كان هي هذا ما يعني مقرنين قوان كلامية وكان يقول لك marka inagu waxaan u baahanahay war dhaqanka dumarka inaan barano shaxda nimankani ay free wuxuu u heliyaan inaga wax qaaliga inaga dhigtay maxay tahay su-aashu waa mid ah cidii wanaagsaniyada u taala waxaan garanayna anigu waxaan leeyahay war ninka Soomaaliga weyna loo yaqaanayaa Soomaaliya adduunka wada way ku nool yihiin dumar iyaga ka qurux badan ka dhaqan wanaagsan ka caqli badan ka aqoon badan ka sharaf badan dhinac kasta kaga fiican adduunka jooga war adduunka hada eegniyo adduunka indhaha loo farniyo قد بتكون تستنى وبلا توفيق. أي أسمع ده كل بالك أنا فريضة يلا واحد يا بس ياسي هيا ويل كان سدح شربة السجيبة حكومة سدح شربة وحيري قبله واحد نمك الراعي وحيري قبله واحد ربع نين النقطة دفاع النقطة نين النقطة ay ku tirsadaan nin ay dareemaan inay nin la joogaan nin u noqdo gaashaan iyo garab sidaas awadeed gabdhuhu nimanka ku raacaan waraan wax fahanno waa sidaas u dhacan uu mariyay haddana wuxuu leeyahay war adduunka gabdho waa joogaan gabdhaha Soomaaliyeed waxbaysan waalin aan ka tagno gabdho kala raadsan adduunka gabdho badan baa joogeen laakiin wuxuu ogeyn gabdhaha Soomaaliyeed waxay raadinayeen oo ay ka waayeen kuwaan haleeyo meed noocoodii بيئة أي كوهية قبلها لو واحد سنة ولا روان وقبر قف إبل الراعيس أما قف سكرونسل راعيس الجرد بل سوى عجيب قبر بعلا سهران ماشى اللي يرمي على أسمع قبر ناس أيه وجواب يسيب الأسئلة اللي يسنو. السلام عليكم. محبتي كنت على رجل دوك هو كدجا
waan salaamayaa inta kor joogta inta hoos joogta inkastoon madalka horta qofnaba personal taagan samaynayn oon ka hadli doono jamac aan ka hadli doono insha allah. horta maxamed waxaan ku leeyahay filistaasi oo mahadsan tahay buwaanti fiican baad ka dhawaajisay oon kugu raacsanay yes waxaad ka hadashay israel laakiin only maaha gabdhaha soomaaliyeed oo dhata gabar kaste oo adduunka korkiisa ku nool waxay eegtaa ninku dhowr meelood bay ka eegtaa waa run inaku markaad wax dooranaysiin gabadha kama eegtiin dhowr meelood wax kastoo tahay waad ku qaadateen laakiin waxbaan ku fahansiinayaa gabadhu waa mashiin aad iyo aad gabadhii wiilashii horta waxay ku dhufatay maaragtay madfac waxay tiri gabdhaha oo dhan oo adduunka ama Soomaaliya ha ahaato ama mid kale ha ahaatee isku si way u fakaraan isku waxna way rabaan waa isku baahi marka gabadha Soomaaliyeed wixii in ka weyday gabdhaha kale tan way ka weynayaan marka sidaas awadeed idin ma baahna gabdhaha kale waxay yeelay gabdhaha Soomaaliyeed yaa idin ka waayay soo gabar kale tan in ka heli mayso haddaba gabdhuhu maxay rabaan ma isweydiinaysaa maxaa nimanka Soomaaliyeed gabdhaha uga tageen gabadhan hadda masaakiinta ah oo lagu dhagan yahay wiil Soomaaliyeed soo guursaday boqolkiiba boqol way arrinkaas wiil Soomaaliyeed soo guursaday soo dayriyay gabadhii iyadoo da'yar aan 20 sano dhaafin uu fura wuxuu rabaa nolosha single wuxuu rabaa maqaayad inuu ka sheekeeyo wuxuu rabaa inuu iska tago inuu iska maqnaado kaliya iska wareego gabadhiina qof bay guursatay gabadhii single-nimada ka baxday qof bay guursatay waxa rabtaa qofkay guursatay inay hesho raacdo la joogto oo waqti la qaadatay rabtaa ilaa nolosha single-ka iyo nolosha markaad guursatay labay kala tahay laakiin faarax wuxuu rabaa hadduu single yahay hadduu guursado inuu isku soo noolaado inuu meeluhu soo mari jirana soo maro dadkii ula sheekaysan jirana la soo sheekaysto waqtigu meel kusoo qaadan jirana kusoo qaato naagna guriga u joogto naagta marka ma armaajo soo gadatay baa marka oo guriga iska dhex taal oo markaa rabtidna aad bedelaysid markaa rabtidna alaabta dhar gashanaysid saaranaysid waa maya wakaas waa wax yar waxyaabaha maalin kasta aan arkayno oo indhahanu qabanayaan oo ceebta ah oo bulshadii Soomaaliyeed haysata wax yar waxa ka daran inta qarsoon ee la arkay ma ka daran inta shaashadu aysan qabanin ba ka daran inta bulshadu aysan isla wadaagin ba ka daran marka habeen kasta wuxuu yiri ninkii maalin kasta ma u joogaa habeen kasta iyo maalin kasta waxaan u joognaa qoyska Soomaaliyeed oo dabar go'ay hayl gabdhihiin hadday umada kala raacaan wiilashii umada kala raacaan dadka dabar go'aya yaa sabab ah marka dabar go'a ma wax iska imaaday ba yaa sabab ah waxa sabab ah nimanka iyo wiilasha ayaa sabab ah gabadhaan hadda guursanaysa wiilkan hadday inta ay ku raacday wiilkan hadday ka heli wiil Soomaaliyeed ma kula tahay raaci lahayd kulat waxay ku raacday moogi garan mayno malaha waxay isku arkeen kalaabka moogi de kalaabka Soomaalidu waa tagtaa wiilashu waa tagaan maxay ugu arku weydii mid Soomaali uga soo raaci weyd xagee isku arkeen meelaha sigaar lagu dhuqdhuqay isku arkeen haya baash ma shishada miya isku arkeen oo wiilal Soomaaliyeed meesha waa joogaan waxay isugu arku waayeen yaa meelaha lagu jimacsaday isku arkeen ee jeemanka dhalinyaradu way tagtaa maxay isugu arku waayeen المهمة وحيتها gabdhaha Soomaaliyeed ma aha waxa soo dhan adinku waxaad ka fikiraysaan kalaab bay isku arkeen kalaabka wiilasha Soomaaliyeed tagaan waxay isku arkeen shiishadaha meelaha lagu cabiyo qashinka wiilasha Soomaaliyeed baa tagaan meeshaas waxay isku arkeen jiimanka ay waa joogaan laakiin waxa soo dhan ma taas oo dhan ma meesha isku arkeen wiilkan iyo gabadhan waxay isku arkeen waxa weeye caadi isku arkeen gabadhan wiil Soomaaliyeed guursaday oo soo deeriyay oo soo furay banaanka keenay meelay aadama leh fidmeeyay gabarnimadeedii dhaafiyay magac u saaray madaxa in la guursaday garabta u saaray waxay sameeyeen marka nolosheeda ma nacay marka mid kasta haday tii la furay buu tii la furay xaafadii magaalada degan waxa leeyahay tii la furay day way hebel naagtiisii uu soo furay nin baa la sheekaysta maalin ninka marka waxaan yiri wareede oo xaaladda ka waran reer guud ma Afrika reer degan yahay haddana
mid kalaan raadinayaa oo ma intaad ka guursanaysaa ahay kasii yiri maya meeshaan dee meeshaan waa la garanaa buu yiri meeshaan dadka jooga waxna waa la qabaa waxaa la furayna wixii furay waa la garanaa buu yiri marka waxba kama raadinayo yiri haye waxba kama raadinayo xageed wax ka raadin meelaan laga aqoon ceebtiisa iyo xaaraantiisa meelaan laga aqoon wax ka raadinaya dadkan way garanayaan inuu yahay qof xun cid wax ku darsanaysa mal marka wuxuu raadinayaa meelaan laga aqoon oo uu been u sheego fahanteen marka waan yaabo iga yaabiyo runtii aad baan u yaabay warkiisa markaan dhageystay dabcan gabdhaho dhan waa sidaas waxaan maqli jiray googa cadale xeradalada oo u la qaada male aan maqli jiray xeradalada oo u la qaada male hadda idinku kasoo jawaaba u la qaada male maxaa laga wadaa laakiin ana hadda waxaan u wataa ragga Soomaalidu waa badan yahay laakiin in la guursado kuma jiro gabdhihii waxay ka waayeen wiilasha Soomaalidu waa badan yihiin laakiin oo la qaado male waa wada badan yihiin laakiin qof gabdhihii waxay dhahaan qof aan la sheekaysano raggii kuma jiraan qof nafsadanada ku aamino rag kuma jiraan qof baahida rageed buuxin kara rag kuma jiraan rag waxay noqdaan wax qashin cunaya wax lagu xun leh lagu manjabaasta meedhan lagu xun leh wax noloshii ka dhacay wax wareersan waxaan iska warqabin wax maaragtay maqaayadaha iska fadhiyo iska qaylinaya meelahaas 4 saac 8 saac habeenimo nin waxa arkaysaa qoys loo reer loo midnight u socda midnight gurigiisa u socda shaqada kuma maqayn waxna kuma maqayn bilis hadalkan soo gaartay oo YouTube channel kana daawanaysay bilisna taageer si aan anagu u taageerno gabdhaha Soomaaliyeed fadlan subscribe ka halkan inuu reeb taas maaragtay nagu taageer waad ku mahadsan tahay intaan muuqaalkan muuqaal lamid ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo